Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Bilowgii noloshiisa wuxuu ahaa nin lunsan oo daroogada caba oo caasi ah. Sidoo kale wuxuu ahaa nin dulmi badan oo dadka xaqooda cuna. Sidoo kale wuxuu ahaan jiray nin ribadana cuni jiray oo dadkana u gacan qaadi jiray. Wuxuu samayn jiray nooc walba oo dulmi ah. Sidoo kale wuxuu samayn jiray nooc walba oo macaasi ah. Wuxuu ahaa nin aad u faajirnimo badan oo dadku ay la yaabi jireen macaasidiisa. Ugu dambeyntii wuxuu noqday nin habeenka intiisa badan oo hinku dhammaysta. Wuxuu oran jiray: Ilaahi, anta waxdaka alladii yaclamu saakina aljannati min saakini annaar. Fa ayu rajulayni ana? Ilaahayow, adiga keligaaga ayaa ah kan kala garanaya qofka jannada degi doona iyo qofka naarta degi doona. Haddaba midkee baan anigu ahay? Allaahumma jacalnii min sukkaani aljanna walaa tajcalnii min sukkaani annaar. Wuxuu yidhi Maalik ibnu Diinaar raximahullah: maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan jeclaystay in aan guursado oo aan ilmo dhalo. Markaas baan guursaday, kadibna waxaa la ii dhalay gabar yar oo aan magaceeda u bixiyey Faatima. Waxaan gabadhayda Faatima jeclaaday jacayl xad dhaaf ah. Mar walba oo ay Faatima soo weynaanaysay, waxaan dareemayay in iimaanku uu ku siyaadayay qalbigayga, oo sidoo kale macaasiduna ay ku yaraanaysay qalbigayga. Mar walba oo ay Faatima i aragto anigoo gacanta ku haysta weelka khamriga, intay ii soo dhowaato ayay iga leexin jirtay iyadoo weliba 2 sano xitaa aanan gaarin. Waxaadba mooddaa in Alle subxaanahu wa tacaala uu ku ilhaamiyey in ay sidaas samayso. Mar walba oo ay soo weynaanaysay, waxaan Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa u dhowaanayay tillaabooyin. Sidoo kale waxaan si tartiib tartiib ah uga fogaanayay macaasida. Ilaa Faatima cimrigeeda uu u buuxsamay 3 sano oo kadibna ay iga dhimatay. Kadibna waxaan ku laabtay meeshii aan markii hore joogay meel ka sii fog ama ka sii xun. Mana aanan lahayn sabarka si aan ugu dulqaato oo aan ugu sabro dhibaatadayda. Waxaana ku laabtay meeshaydii hore meel ka sii xun, waxaana igu cayaaray shaydaanka. Ilaa laga soo gaaray maalin maalmaha ka mid ah oo uu shaydaankaygu igu yidhi: maanta waxaad isku sarkhaaminaysaa si aadan weligaaga horay isku sarkhaaminin. Kadibna waxaan go'aansaday in aan is-sarkhaamiyo. Markaas baan go'aansaday in aan khamriga cabo. Markaas baan habeenkaas oo idil isku daldalayay khamriga ilaa aan ka cabay khamri aad u fara badan. Kadibna waxaan is arkay anigoo riyooyin ku dhex jira ilaa aan ka arkay riyadan aadka u layaabka badan. Waxaan arkay maalinka qiyaamaha, iyadoo qorraxdu ay mugdi noqotay oo badihiina ay naar isku beddeleen oo dhulkiina uu gilgilanayo oo dadkiina la isugu soo bixiyey maxsharkii qiyaamaha. Oo weliba dadkii ay kooxo kooxo yihiin oo aniguna aan dhexdooda ku dhex jiro. Markaas baan waxaan maqlay mid naadinaya oo ku naadinaya Fulaan ibnu Fulaan: halumma lilcarji cala aljabbaar. Hebelow kaale si aad u soo hor istaagto rabbigaaga si lagula xisaabtamo. Markaas baan waxaan arkay hebelkii loo yeerayay oo wejigiisu uu aad u madoobaaday cabsida iyo argagaxa awgeeda. Ilaa aan ka maqlay mid naadinaya oo magacayga ku naadinaya oo dhahaya:
halumma lilcarji cala aljabbaar. U kaalay si aad u soo hor istaagto rabbigaaga oo lagula xisaabtamo. Waxaa hal mar iga wada qarsamay dhammaan dadkii hareerahayga ku sugnaa. Waaba iyadoo la moodo in hal qof uusan ku sugnayn barxaddii maxsharka. Kadibna waxaan arkay mas aad u weyn oo aad u xoog badan oo intuu afkiisa kala qaaday dhankayga u soo socda. Markaas baan anigii cabsi iyo argagax awgeeda cagahayga wax ka dayay oo ka cararay. Kadibna waxaan arkay nin oday ah oo aad u taag daran oo daciif ah. Markaas baan ku idhi, iga badbaadi maskan. Odaygii wuxuu igu yidhi, wiilkaygiyow, anigu waxaan ahay mid daciif ah oonan tabar lahayn, balse dhankaas ooga carar waxaa laga yaabaa in aad ooga badbaaddo. Kadibna waxaan u cararay dhankii uu ii tilmaamay, isagoo maskiina uu i ceyrsanayo oo uu isoo daba jiro. Kadibna waxaan arkay anigoo naartuna ay iga horrayso oo ay wejiga iga soo hayso. Kadibna waxaan is idhi, ma mas ayaan ka cararayaa si aan naarta ugu dhaco. Kadibna anigoo degdegaya oo maskiina igu soo dhow yahay ayaan dib u laabtay oo u soo laabtay odaygii daciifka ahaa. Kadibna waxaan ku idhi, billaahi calayk, ilaah baan kugu dhaariyey i badbaadi. Markaas buu odaygii xaalkayga intuu ka calool xumaaday iska ooyay. Kadibna wuxuu igu yidhi, anigu waxaan ahay qof daciif ah, sida aad arkaysidba waxba kuuma qaban karo, balse u carar buurtaas dhankeeda, waxaa laga yaabaa in aad ku badbaaddo. Markaas baan u cararay buurta xaggeeda, isagoo maskiina uu aad igu soo dhowaaday. Markaas baan waxaan arkay ciyaal yaryar oo kor saaran buurta dusheeda. Kadibna waxaan maqlay iyagoo dhahaya, yaa Faatima, adrikii abaaki, yaa Faatima, adrikii abaaki. Iyagoo ula jeeda, Faatimoy, aabbahaaga ka gaar oo ka badbaadi maska. Wuxuu yidhi, waxaan ogaaday in ay tahay gabadhaydii. Sidoo kale wuxuu yidhi, waxaan ku farxay in aan leeyahay gabar yar oo dhimatay iyadoo 3 jir ah oo iga badbaadinaysa xaaladdan adag ee i haysata. Markaas bay gacanteeda midig igu qabsatay oo maskiina ku qabatay gacanteeda bidix. Anigana waxaa la imoodaa in aan mayd ahay cabsida iyo argagaxa awgiisa. Kadibna waxay ila soo fadhiisatay qolkayga sidii ay iila fadhiisan jirtay markii ay adduunyada joogtay. Waxayna igu tiri, aabbow, alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikrillaah. Waxaan ku idhi, gabadhaydiyey, bal iiga waran muxuu yahay maskaani? Waxay tidhi, kani waa camalkaagii xumaa, adiga ayaa korisay oo weynaysay ilaa uu ka sigay inuu adigaba ku cuno. Aabbow, miyaadan ogayn in camalka adduunyada lagu qabto uu qiyaamaha imaanayo isagoo jir leh? Ninkaas odayga ah ee daciifka ah ee aad soo arkaysayna wuxuu ahaa camalkaagii wanaagsanaa. Adiga ayaa dayacday oo daciifisay aabbow ilaa uu la ooyay xaalkaaga oo uu ka awoodi waayay in uu waxba kuu qabto. Haddii adigu aadan aniga i dhali lahayn oo anigu aanan dhiman lahayn anigoo yar, maanta ma aadan heli lahayn hal shay oo ku anfaca. Maalik wuxuu yidhi, waxaan hurdada ka soo toosay anigoo ku qaylinaya, qad aana yaa rabbii, qad aana yaa rabbii. Nacam, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
markaas baan intaan qubaystay u soo baxay salaadii subax anigoo doonaya in aan towbad keeno oo aan u soo laabto Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa. Kadibna waxaan soo galay masaajidka, isla markaasna waxaan arkay imaamkii oo akhrinaya isla aayaddii naftirkeeda. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. wuxuu yidhi markaas baan ishayn waayay oo aan aad u ooyay. kaasi wuxuu ahaa Maalik ibnu Diinaar raximahullah. wuxuu ka mid ahaa a'immadii taabiciinta. wuxuu ahaa nin habeenka intiisa badan oo hinku dhammaysan jiray. wuxuu maalin walba masaajidka albaabkiisa istaagi jiray isagoo naadinaya oo dhahaya: ayuhal cabdul caasi cud ilaa mawlaak, ayuhal cabdul ghaafil cud ilaa mawlaak, ayuhal cabdul haarib cud ilaa mawlaak. addoon walba oo caasiga ahow u toobadkeen rabbigaaga. addoon walba oo ghaflada ku jirow u toobadkeen rabbigaaga oo u soo laabo. mawlaaka yunaadiika billeyli wannahaar. rabbigaa waa uu ku yeerayaa habeen iyo maalin walba oo wuxuu ku leeyahay: من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا. qofkii ii soo dhowaada taakada in la eg waxaan u soo dhowaadaa in la eg dhudhunka. waman taqarraba ilaya dhiraacan taqarrabtu ilayhi baaca. qofkii in la eg dhudhunka ii soo dhowaadana waxaan u soo dhowaadaa in la eg tillaabada. waman ataanii yamshi ataytuhu harwala. qofkii isagoo socda ii yimaadana waxaan u imaadaa anigoo u ruclaynaya. as'aluka tabaaraka wa tacaala an tarzuqana at-tawbata wal-cafwa wal-maghfira والثبات على الحق واليقين والتوحيد حتى الممات وحتى نلقاك يا رب العالمين. فاللهم اجعلنا من التائبين الخاشعين يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.